السلام عليكم haddii aad isticmaasho cirbadaha weight loss-ka magacaad rabta adigu ugu yar waxaan rabaa shalay haddii lagaa dhaadhicinayay muruqahaaga inay halis ku jiraan oo miisaankaas degdega kaaga dhacayo muruqu uu ku luminayso lafahaaga yaa maanta cilmi baaristu waxay sheegaysaa inay sidoo kaleeta halis ku jiraan waxaa jiro qaanuun uu biologigu u yaqaano Wolff's Law dabcan dadka biologiga akhrista way fahmi karaan ogow mar walbo lafahaagu ay cadaadis dhanka muruqaha ugu imaanaya ee helaan waa mar walba ay koraan an mar walba oo muruqahaagu ay meesha ka baxaan muruqahaagu ay dhicif ku yimaado waa mar walba lafahaaga xitaa nafaqooyinka ay ku nool yihiin sida vitamin D-ga iyo calcium-ka la gaarsiin waayo lafahaagu waa laba ama inaad isticmaasho si ay awood u yeeshaan amaba in ay dhintaan wax u dhaxeeya ma lahan qofka markuu Ozempic isticmaalo marka waxa dhacaysa inuu cuntadii oo dhan ka go'o inuu cuntadii ku lalaboodo inuusan waxba cuni kareenin taasoo keenayso in muruqaha jirkiisa uu isticmaalo li'anna mar walba aadan cunto banaanka ka keeneenin jirkaaga si uu u noolaado waa in uu nafaqo helaa nafaqahaasna muruqahaaga laga soo saaraa mar walba marka muruqahaagii in la isticmaalo ee bilaabaan waxa dhaco waxa la dhaho mechanical stress in lafahaagii wax cadaadis aysan helin haddii cadaadiska uu meeshaas ka joogsadana sida aan kuu soo sheegay Wolff's Law wuxuu sheegaa in lafuhu laga joojinayo xitaa macdanta ay helayaan nafaqada goonida sida calcium-ka iyo vitamin D-ga laga joojinayo taasoo keenayso in uu burbur lafahaaga ku yimaado cirbadahan aad isdurtaan marka wax dhibaato ma lahan laakiin waxa dhibaatada keenaysa waxay tahay muruqahaaga iyo lafahaaga dhibaatada ku imaanayso isku day marka haddiiba aad isticmaalaysid inaad qof khabiir ah kagala tashato si cuntadaada iyo jimicsiga aad samaynaysid ee gaar ahaan muruqaha lagu ilaalin karo lagaaga saxo. Assalaamu calaykum.